محمد عثمان حسين الوردي قال له ولي ما كل واوغي ما كنتين مرنا محمد صاحب كوي بري ودن بيسين سو غلي halkan aan waniya fanaanka Allah yarxamo محمد نور غريق ayaa dooni iska raacnay ilaa markii rasaas iyo iska dayn waayeen dayday berbera ilaa cadan sagaashankiiba koobiya sagaashanki inankiisa cadan jaamacadda kaga jiray isagoo u yimid yarkay oo takharrujaya qalin jabinaya ayuu baan hodheelkiisa ugu nimid maxamed nuur markaa waan ka tagay anigu axmed jimcaalo SNMta halkaa u fadhiyay oo abtigayna ayaan la fadhiyay سووا كمان كيستزيكا وردي زيكا إشجابك ربان سفينة دوني بابا وتكويوه اللي مرة سعودي ومرة ربان سفينة ومرة صومالي انت شنو يا فيس قلت له والله الكلام كذا دوني بابا وظلنا وكانوا والرسولي شنو حكاية البلاد كلاسان كوري سياد بر مركب ما بيننا كلام سياد بر تردناه كل كسوي علي الطلاق لو تطردوا ناس الجن الجنوبي ديل أنا أجي مع الفرقة ببلاش أنا توجيت عشان ابني بيتخرج حابين كيبانو داود فريسنون ليلة أنا ها ميم يجي بخيري باشا حرورتي بنا نقريقر دائم رقا وابر دوني دي بولي فوشة أيالي هذا على بيها درسته يبادل الفوشرين تلفزيون كيبو كار كيسا والله ريسريو إيران كيسي oo qalin jabinaya oo حاليا بيا وانا قال احمد جمال لفدني لكن فرصه وفاتت عليك الفرصه مركز سوق هيدا بيسي تبدو بكود بالي يقولي يمثل يقولوا بكود قلب ودنها لغا قال امريكان هي سو رايت دير لكن وانا محترم معلم بوها اسبا محترم جدا فنشال ومعروفه laga yaqaan dhulka carabta oo dhan oo kaftan badan xaasas saddex iyo waxna malaagu leeyahay caruur badan Allah u barakeeye de markaa dadku waa naas linaas waan gartay markii aad kulanteen waan waxaan u maleynayay in waqtiyadii sagaashamiyadii markan hore markii dambe aad kulanteen markan 91kii ayaad kulanteen cadan de markii ka horeeyay go'aanad kulanteen markaa waxaan bariga aan joognay Qaahira ayaanu fasax nimid Suudaan aniga tirim saaxiibkay naqaabada fanaaniin kana casuntay markaa masraxaanu kala yar heesnay annaguna de Soomaaliga iyo waxyaga iyaguna ku waday qaadiyeen markaas aanu xoog isu sii baranay oo bacdeen anagu Qaahirada baan iskaga noqonay de iyagu saniman idaacada u shaqeeya ayay ahaayeen Suudaan فناني واوينا أنا مركا ما حد كان بدي كتير ميوزيكا مركي دقال في 67 أن فيصل سيدنا حسوسنا بس إذا جرتا أن واحد الفنان ككرياتا وهالسي أم بكر هالسي لعقت أن هستا يقارت القاضي يو واحد كل شعلاته ولو مركي تدك أي كدعايدين أي لحظان فيصلواني لعقت شعله لعقتي نو هالسي هلي وعوي هرت باسن إن أبي متشلو المية رأي الكلام هدادو ديكتو وغسلية هدا قيمه إذا بقرر بايو هداد كقادنا وقوية مقعدنا اللعق وحوية ننكي هايستبا إلا صوتاي واسكو عقتي سنبا إذا اللي جيب كي يوجرتها إلا صوتها مركا مران وحوغي إمان كشقاي سني وحانو كعنو عنو ويني أيوما نوار باسي إلا هوية دادو باهن وقيا هدابا واتني إذا سيدي لغلغي ماينه مركا عالم كنت وكود هسا العقدة هو مينس ويو وحبا بداك رسول مايا هدي الحين مركا أنو من العقدة عريدتك كما العقدة عري قاربا إلى محاد لو فرتيك هالو ما يولا سانا هذا ارتاحتان الرسانة جد انتي سوق شيء وريد بان هذا مركا مراها هي هستي يالها مراها ورموها لك مدوي مركا نتوقنا بها هدو عايد 77 meelaha madaarka midway baa la dhisay Cumaan la 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 la
faysal علم الفراق أنا أشكي ليمين هيدي midhaha ayaa heesta lahaa من وعن كل حاجة عول نكين adiga الحاج فيصل adiga lahaa ما يلاقي سنة waan gartay وان كوفي dhinaca kale fanaanka Faysal Cumar Mushtaag waxa uu ka hadlayaa ama faahfaahin ka bixinayaa sawdka qaraamiga ah ee loo yaqaan subcis habka ay u taalo sida iyo qaabka uu u dhigay ama meesha uu ka keenay isagoo dhinaca kalena tibaax ka bixinaya sida ay fanaanintii hore ee uu isaguna ka mid ka ahaa ee walaalaha Hargeysa la oran jiray aanay heesaha u kala lahayn balse ay u ahaayeen dad walaalo ah oo heesuhu midba kan kale ta uu doono ama uu jecel yahay uu qaadi jiray isagoo dhinaca kalena sheegay faraqa u dhaxeeya barigaasi hore iyo waqtiyadan dambe oo uu sheegayo in ay heesuha amaba suugaantu noqotay mid hunguri loo adeegsado imise heesood baad adigu samaysatood qaaday tumatay laxanka samaysatay ma kala aqaalo dadkana kuma qabsado intaan qubay hadalla qaaliyahay qarshaariyay waa quruur waxaan baan idhahaa Soomaaliga waa la wada leeyahay kolka qof un baa xusuusnaayo helaya laakiin dadka dee kama lihid hadalkuna waxa la yiri intuu afkaaga ku jiro amaanadaada yahay kol hadduu dibadda u baxo dadka kaba xigtid marka kol haddaan waxba badee la isku siinayn waxna lagu kala macaashayn dadka leh anigaas iri mira de waxa aniga iska tarcad balacaliyay sidaana ku ugu haddaan dhul su'aal ku darsado markii waad qaadi jirtay wax la qaadi jiray qaraami subcis marka waxaad moodaa inuu subcisku soo xidhay heesihii noocaas luqyada qaadi jirteen bal arrimahaygana faahfaahin naga siiba subcis horta quraanka marka caruurtu akhriyaysa alif reeb ma yidhahay kaa kalena alif lasteeya lagu reeb oo alif laagado course soo maaha kolkaa heesta waxaan nidhi hala subciyo oo hablaha iyo inamadu hala wada qaado marka subcis baan u bixiyey dabeedna waanu qaadnay habluhu way qaadi jireen si macaan ragga maxamed mooge iyo annagu berigii hore heesamaanaa kala hayn heestayda iyo waxayga iyo shaarkayga iyo may ahayd ninba tuu doonuu iska qaadi jiray tuu ku macaan yahay annagaa baan jiray nin kastaa sameeyay hebel oo yartaa idhoo qaad oo waxa la wada leeyahay da social soo garmaysid markay lacagta noqotay baase anigu baydkaasaan idhoo markhaataan lahaayo dee ma markhaati un baanu hadal u doondooni hadalkuna sumad ma kala leh nin waliba wuxuu ku leeyahay anaa 22 sameeyey oo wallaahi billahi tallahi darajadlan ku sii socon oo de soo kay adaa sameeyeen daa markaas oo istunaalkaas istaa ku soo baxday qaraamiguna subcis waa hees qaraamiga uun kamid ah madiix subcis raahaye nugul rakaad waxaasoo dhan baa qaraami laysku yidhaahayo dee baqaraysa heesaan la fadhiyo laysu tuurayo ayaa ahaa dee qaraam alqaraami intaasaa laysku oranayay kuwan tuwiiskan iyo buwiiskan iyo berigii dambe dee tuwiista naayre weehey baana soo galay ilaa intan aan ulbaxnay ayay baashu modernised noqotay oo la yidhi de waxaan anigu Germany maraan joogay habeenkii markaan soo rawaxo shirkad baan u shaqayn jiray beerka daboosha habeenkii aniga kristiinadaydii markaan soo galo markay de qaadaan afjar malmeeran hees ayaan marmay dhacayn maalayn Somali song beate hadda mar xagga iyagana wasala beate shay lagu diidi maayo walaalo afrikana baan dhigi markaasaan ku dhuftaano higla weeylaan maraaye weeye geed galoolo hoostay weeye gabadhan jeclaaday weeye magaceedu guud halay weeye goobta dhashay weeye brother see the lady with the diamond ring hey see the lady with the double star kolkaas odagan waa James Brown adeerkii jawaaskaygii habluhu autography please your name please deemaan buu kala maastay passport kuma aasada aan ka dhex galay waqtigii aad joogtay dalka Jarmalka waxaan maqalnay in xitaa dadku buugaagta kula hoos yaaci jireen isaga lagu saxeexdo haayo hablahi baa ku oranayay noo saxeex heestiireed ma ka dhacay oo markii saarkayga yar Christina ma martootay alla ilaahay waa taay tumeen the musicina waa isku wada mid international wasaleeyo James Brown labaad baa arrin baa soo baxay waa ka jabta hagtayda ma ka riti
بيتي اوتوغرافي اولغا صاد بوق ما هيسد باسبوركو ما حاسدو ترى 96 داين الريس باسكو غسانا ايك هاب كان اندري بابير هو انا ورقد كلام هي صور كتاي كتالو كرياي هداو تيبا اسنا يقولون سفير كبا لو دير او يراهن نكني حتى عملدنك اقامتي ودنك وقمت عليك waa maxamed jimbaar sabaa sabuurkiina noocaas waraaqo kalun buu sawirkayga ku soo dhajiyay oo yiri mustaafiriya darra xamar buu ahaa deena mustaafiriya baan markii horaan ku dhalanay halkan waraaqahaygii uma isku soo bingaraystay ilaa iyo kuweydna baasaboor baan ka dirtay safaaradii jidda kiibaan abu dabay halka kuweyd beirut ilaa iyo cairo macadkayga haddana ku soo noqday dagaalkii markuu dhacay baan dhawaartan darano garnaylkeena ku dhacay ee diyaaradaha ay ka waayeen war Cabdinaasir Khiyaamay waan iska tagayaayo xamar baan ka dhaadhay anigoo kabna ay neelkayga rideen warsaani lagu hii xaqaan ku mid waa loo kala xaday this is waxa la yiraahdaa style barba ay wareysanayo music-ii ka warano gaasaan dawaan idin dhigi Axmed Naaji iyo waa ku soo دبنا education كيجو منساني وقول نقضي وقت كاسي قرمها جو 1967 67 كيف ها 68 بان كسر نقضي شرمك يعني تيمني كله دمع عربتي 67 تقال كم لا شرمك كمان كم دي هذا 64 كيف يعني تغنية 65 66 67 كيف قايرة يمد تقال كم نقول لا annagii ilaaliye waaraan waxba ilaalmaya darmlo diyaaradan ka baxsanay xamar baan tagay iskuul commercial mid la yiraahdo hablo dhigtaan oo jeelka u dhow ayaa la yiri hadaad laba xiisadood oo ingiriisi iyo geography iyo wuxuu kartaa kiina waxoogay markaan joogay baa Hargeysa la soo bedelay siyaad barraaba qabsaday anoo biyo dhacayda joogay dabeedna waxa dhawaar ka baxay shaqadii no more teacher askarta idinku wax dhiga سيدي بان هدنا كنت عابري مرة بعد شغل كساس وها سؤال ugu dambeysay ku weydiinay waxa weeyaan bal waxaad biograph naga siisaa waayahagi jacayl iyo waxaad ka xasuusto ma jacayl ku wadab ka naga soo hadal qaad jacayl ku wadab uu jiraayo waa dab hadii aad weydana waa jab waa jirjiroodo waa lab waa boqol shaado waa qab uu ku jiitaa waa dab hadii aad weydana waa jab kolka jacaylku waa laba oo midna waa iska yar qofka aragiisa iyo uma iska yar jaajaasho waa afyaadooni midna waxaad oranaysaa imika markaad ka dhaqaaqdaa haddana waxbaa ku oranayaan soo eeg mar kale sidii Cabdinaasir orodoo haddana soo eeg markaas aad oranaysaa isaydaa jeclaatay aragaago naftaa ogolaatay agshogaaga ogaanba waayay gooraan ku imid miyaa odee sodigi goorweed naga tigay awal miyaa idin haysa oo asaas qaadagaya marka jacaylkuna waa cudur ilaahay hiriga daweeyo waa khataristana rag badan uu laayibaa leeyahay yiri oo cilmi iyo leh anigu ma hubo inay si kale u dhiteeyay waxa leeyahay ninka sidii u gabiyay isna dhintay iyo qaar kale oo badan waxaad saaxiib heleen barkhadaas waxaan maqashay inuu ilmo dhinta jacayl sidoo kale barkhadaas jacaylkiisa wad ka waraysaa adiga uu kugu dhacaa sida naloo sheego barkhadaas ninkaas saaxiibka haydan isaga maxaad ka xasuusta maxamed ismaaciil Allah yarxamo maxamed wuxuu ahaa cabqariyad socota oo waliba wadaniya Soomaalidan qoomba dhulkooda ayuu yiri cadan buu joogi jiro ayuu yiri wuxuu yiri toqon baa ka xishoota wixii uu danay diiniye masjidkiiba way isku dilay damaarkay diyaarad goyn maayo doorkana qaxwajigi dib u dhacay dib yaani dhagahayu daar u maqlina waa meel daar saad la yiraahdo loo qaylaato dib yay dhagahayu daar u maqline duufaana ka obiliyaan ka degini doonidii baashaacilka ila doonbu kulka halkan heesa badan oo wadaniyo laha gambadii dumarka la yiguntii rag baa gacalkayna kala gooyay gabaahiri waa gumaysiga isagoo iglan jooga buu dilay wuxuu soo fidshay iimaysay waa taaramadii oo fatirtay ishaafalatu aliga u yimi hadaan aadan oo ulunka jirin ninka aragiisa oo kan ka nacay aan oo albaabka ii xira gabayadii waa heesihiisa barkhadaas maxamed ismaaciil baazirca idinkiyo ninka la yiraahdo
علي هارون درملي وسنا فنان وينه عددكينا ويسكو ايغينو انت بدن dadku ma kala saaraan saaxiib ilaahi nabati heesaha qaarna habar wadaagnabaati heesahana waad iska daba qadqaateen waan wada leenahay darramle meel waan ku wada dhalanay laba nooc inkastoo ugu ama laba wax weyniya lama sheego haddana waanu fankana waanu isugu nimid isku firqad baanu noqonay barkad cas markii dambe director buu halkan nooga noqday dabeed markuu la garan waayay Europe isaga London ayuu u guuray ayuu iskaga noqday waa his my intimate friend brother friend way dhaaftay iyo habar wadaag iyo waxaan iyo he's my brother marka laga yimaado waan gartay dooqiisa iyo kayguna waa isku mid waxaan ka helana uu garanayaa psychologically wuxuu diidayay ama uu jeceliyay halkaasaan ka akhrisanaya. We were together in the Institute of Music in Cairo. waan gartay kulay marka intaas oo fanka ku dhex jirtay ma baratay tumida muusiga alaabiisa maxaad ka baratay wallahi qalbigan ka aqaan haleelka ka daran dadka Soomaaliyeed nin aan waxaan hamiyad basin iskuulkii inta dariska nala siinay kadib ma baan taaban jirin diramiyo uma baan jiray nootuma shimbiriyo waxaad digan jirtay iskuulka muusiga High Institute of Music in Cairo waqtigii aad digan jirtay iskuulka maxadka Qaahira fanku goormuu ahaa maxaa ka baratay 1964 ilaa 1967 baan ku waxaana loo dhigi jiray in western music ده وحلي قواعد ودروس dictation بولي ليريو أو أنت لو وحلا تمال قرا يقر نوت يحانو قر إن وحلا قولي هاي إن تواشيح وحلا يلاهو لي هو صوتك سيدا لو برتو منك هوسه إلى آلتو صدح هو صوتك بشركو دتكو وصدح قيبود سوبرانو ميسا سوبرانو يالتا سوبرانو على خيرا ميسا سوبرانو واكا يعرور ير ضعيف كايد فاركت فيكا سوبرانو واكا دليرada ama rag meeldhaxaadka alta soprano waaka kooraska oo kala qaylada ee dheere saddex buu kala qaybsama waxaan isku kala saan jiray Ahmed iyo Shimbir iyo Ahmed iyo Allah yarhamu Shimbir God iyo Faaduma Xaashi Nuur gabadhii uu qabay Xuseen oo Faarax oo reer Geysa ahayd ina Xaashi Nuur iyo aniga afartayada sano ku ahayn arday arbeedo badan oo way nala dhigan jirtay oo nimika wada xusuusnay Suudaanta nin Maxamed Takrooni la yiraahdo nala kala saha oo Junuubiya oo kaftan meerana oo madow hadana shaydaan hablo oo dhanka qusdiya heestad heesaaga ugu jeceshay ma xasuusta ma kala jeceli waxaan ugu jecelahay subaxska دوا سبعس ومليه ديبا وناكسنو يرى مقشيبا يا هيد عندنا يو دوي يا هيد عندنا يو دوكسيباي يا هيد يديرنا يو نفتاي داي درنيادا وديدي جرتاي انيغا دوغونو ninkale ku daray tabaysho maygadaf taydaaladahay tabaysho aygadaf todaala hayay karao yan wanaag lagis marin kulay fanaaniinta isku fanaaniinta haydeen waxa jira markaad dhageysigo qaar aad jeceshay Faisal ragiga haween فنانينتا تعيشين دغيساتو وا كوي waxaan jecelahay in مثلا محمد موغا waan jecelahay محمد موغا الله يرحمه احمد موغا waan jecelahay markuu qaarayo laba soo maaha waxaan kaloon jecelahay Maandeeq Cabdillaahi Kaahin markay qaadayso Xaliima Khaliif Umar afar soo halkaasi horta maaha yaa dirin markuu qaadayo Ahmed Ali Haruun
shimbir allah yarxamo markuu qaadayo timahaba iskaaga taagi jiray oo he was something else alright allah yarxamo raaximiin dee markaa waa iska adduunye ugu dambeyn ma jirtaa fanaaniinta haweenka qaar aad la heystay adugu sahra axmed baan u malaynayaa inaan qaar la qaaday xamar beri inkastoonay badnayn laakiin dee inay wax ka yaalaan iyo wixii ay ahaayeen gacantaada midig waan u baahanay iyo hees nin aadan hore la oran jiray sameeyey oo sahri qaadi jirtay oo darandoori ahayd iyo waa qaadi jiray laakiin dumarka uma badnayn anagu colkan dumarkada la heesa keelisaay aloonun baan iska ahaa badanaa kuwan ugu dambeeya heesaha kuwan yarare ugu dambeeya ee heesa waqtiyadan dambe kuweebaad yara dareentay heesooda amba fanaaniin aad u aqoonsatay oo degeysatay heesooda waxaan dhegeystaa axmed cali cigaal busi cabdinaasir kan bal haddee saddex soo halkaas horta ma aha xasan aadan samatar islaale boy ka yaree la yidhaaho dig feerre wuu dhintaye allah yarxamo fanaan weyn buu ahaa juba dee waa juba haa jubahan shay iyo juba waa good singer intaaba waan jeclay heesahooda alright ana mid ka mid ah heesahaagaan jecelay weli waa caruuro waa laan curdino waxaa loo carbinayaa oo ku haysto oo bedahaan aad u kala bedelantiin anigii ayo adigiyo axmed cali haaruun noo qaado haa maxamed moogaal arxamin waxaa alifay heesta allah yarxamo macalinka iyagii yuusuf alxaaj qabiile markaa dee waa nin cabqariyadu ahaa macalinka iyagii father of education allah yarxamo wuxuu u dhiibay heesta annagu idaacadda kamaanaan shaqaynayn heestii ma maqalay heesta waxaan u malaynayaa midabaan cadaan iyo cawlaan hayno laxankana ina xudeedi baa malaa u sameeyey dabeedna waanu maqalay dabeedna wayna gashay dabeed darin baa qaaday maxamed moogaa qaaday anigaa qaaday it was ahayd hees wanaagsan bay ahayd oo way sifo wanaagsanayd oo nin educated ayaa sameeyey oo weliba shaacir ahaa allah yarxamo oo fanka jeclaa qaahira abahayagii fanku ahaa ilaa iyo idaacadda inta noo raaco lacagta isagaan u dhiiban jiray heestii walba 45 gini ulasan saqda dhexe 100 goor toosiya ana yuusufna si weyn laga kalgooday waar mar baadood qaadasana damay macalin abade rasuulaha imika bay hadsoon noqon si kordhiso he was like our father inuu wadanka iyo educationka iyo fanka iyo mid walba ka baxay buu ahaa الله يقامده فسيح جناتي كل كان نقص هذا القاعدني الناس كايده marka kabanka lagu tumayo yey ku qiiri galin jirtay waxay dareen fiican ku galin jirtay wuxuu yiri عليه السلام من لم يهوسه الضرب فليس منا حتى انا عليه السلام كمان انا مقال بس بدينا مايو عربته ايوب كان مقليو واحد والنبي كبرنا ما سومو قاليني دف بيقول لي في بدر كسود ويسي دلع البدر علينا قصيدة اللي جراها في ثانية هذا مو أقول نبي وحنا مني ذا كداي مركا كل يبقى هذا if you are a human being even snake هذه لا تمو music وديني حركة he's tasting وفي الكرين يعني a bird a snake any human creature adigoo qof oo heesayna waa inaad ku taabtaa oo dareentaada haddii kale inaad iska bedaysaa la qaadan lahaa ninka xudeedi la yiraahdo iminka la dhaabihii kabanka weeyaan oo muddo ku sidan 50 sanadood in ka badan tumiyay sidaas ku haydeen diku markuu ku tumiyay maxaa diiray dewa saaxiibkay abahay iga weyn saaxiibkay ii soo kordhay buu ahaa from dayaxa maar buu ka soo degay dayaxaan isku baranay iskuulkii ano macalinka from hargeysan isla nimid idaacada ayaan ugeynay macallimiinta iyadaan hayn lama fariisan jirin jabuuti baan ugu tagay wuu soo dhaweeyay xaga Sacuudiga waa kaan ugu yimid maalintii dhaweeyay yimid I was very glad to see him alive oo odaygii sidii oo si xoogaystay waliba inkastoo lugahay khayr soconayn dadaan meel laga galay he is one jiro oo fanka kula taariikh iyo maqaamkiisa muxtaramka ah waliba soo shilaa kaftan meerana
hadduu doono agtara wuu heesi jiray marka uu iska daayaa oo mulaaxina he's a great man ayaan ku leeyahay anigana meel weyn buu igaga jiraa aabbahay baa isu kaayo ogaa labadayadii aabba saaxiib bay cadan ku ahaan jireen aabbahay baa iga sheekeeyey oo yidhi cadan tagsiilaan oo markaan dagaalamaba aabihii baa soo dayn jiray cumartay iska celi carabta iyagana wuxuu yidhaa waa badkaan ka yar aniga aakhiro tuuro haddana anoo suuqii joogun bay arkaan oo say hada xudayda ibn cam iska celiyiin adar garaac marka cusra dawiila min oo labada waalida ayaa naga dhaxaysay markuu halkii weyna xudeedina wuxuu yidhi aabba magay waa qariib gacantaa sii dayn aabahii abaalku cadan igu galay anigoo yar you won't imagine markaa haddaad magaaladaadii u yimid ninkaa meelaba ha kaga harin sidaan wada soconayna jabuuti buu iska tegey jabuuti from jabuuti haddana muqdishona waanu wada joognay intaasna dhegeystayaal waxaanu kusoo gabagabeynaynaa waraysigii mustafe cabdi maxamed janaale uu la yeeshay fanaanka weyn ee caanka ah faysal cumar mushtaag barnaamijkan lamida intaynu ku kulmi doonana waxaanu kaga tegaynaa dhammaantayaba sidaas iyo nabadgelyo iyo ammaan alla Sankai ya do dai
حسد